dhammaan daawadayaasha qiimaha iyo qaayaha badan ee sida tooska noogala socda Ogaadeen TV waxaan idin leenahay mar kale ku soo dhawaada barnaamijkii aad nooga barateen inaan mar walba halkan aan idin ka soo gudbino. Haddaba barnaamijka caawa aan idin hayo waa barnaamijka aad wada garanayseen ee barnaamijkii nafti huraha aan ugu talagalnay 3 week inaan mar halkan aan idin ka soo gudbino. Nafti huraha een amaanta mudan ee asagu jiida hore ku jira sidoo uu difaaco wadankiisa bahda Ogaadeen TV haddaan nahay waxaan halkan hambaliyo iyo bogaadin aan ooga diraynaa nafti hurayaasha ayagu jiida hore ee had iyo habeen u heegan sidii ay cadawgooda oo la dagaalami lahaayeen ama isaga dulqaadi lahaayeen dulmiga iyo dhibaatooyinka ayaga lagu hayo. Haddaba waxaan idin leeyahay daawadayaasha qiimaha iyo qaayaha badan bal nala daawada barnaamijkeenii aan ku eegaynay nafti huraha. daawasho wanaagsan. away qorigan waxa loo isticmaalaa cirka iyo dhulka markaan leenahay cirka iyo dhulka waxa loo isticmaalaa diyaaradaha iyo maaragtay gaadiidka dhulka oo nooc walba leh. gaadiidka dhulku wuxuu leeyahay baabuurta waaweyn iyo taangiyada beebeeyada iyo wixii la mid ah. xagga cirka markaan leenahay waxaan isku ogeyn cirka inuu qorigani wax ka dilo hawada dhexe iyo jooga hoose. sidaa darteed waa inay maad aragtay ninka ridaha ah ee qorigan xilliga la ridayo waa inuu ninka ridihii taagnaada xilli walba oo fadhi uma suuroobayo in uu wax iskaga rido. waxaa loo baahan yahay nafti huruhu marka uu ridayo qoriga inuu taagan yahay. nafti huruhu waa inaad taagnaato waa in sida aan isku ogeyn diyaaraddu aad hor dhigto qoriga sida diyaaradaha dheereeya oo kale. waxaynu isku ogeyn inay diyaaradaha dheereeya barkood inay mar u gasaan ama ay u gooyaan. diyaaradaha dheereeya sida imika MiG 29 ama Mirage afka qalaad ay dawladuhu ku yiraahdaan qorigani waxaynu nidhi wuxuu ka difaacaa wajhada hore marka laga yimaado dhan walba 90 degree oo dhan walba 90 degree oo dhan walba markaan leenahay waa inta ama bidix ka ah ama midigtaada aad oran karto ama cadeed soo bax gabal u dhac waxaas 90 degree loo yaqaan. waxa uu na wareega qorigani 360 degree ee adduunku wareego oo dhan 360 degree ee adduunku wareega ayuu wareegaa qorigani. dhinac kasta oo diyaaraddu kaaga timaadana wuu kula wareegayaa adiga ayaa gacanta ku haya. hadday xaggan kaaga timaado hadday dhinac kaaga timaado laba jeeraba adiga ayaa la wareegay. marka sidaa darteed waxaynu nidhi wuxuu wareegaa 360 degree 360 degree adduunka oo dhan wareego waa ay ka midaysan yihiin. marka waxa weeye in aad xilli walba dhinacii ay diyaaraddu kaaga timaado waa inaad si degdeg ugu jeedin karto adigoo wajahadan hore ka dagaalamayay. haddii dhanka bidix lagaaga yimaado waa inaad si degdeg u jeedin karto qoriga weey oo miisaaman waa inaad si degdeg u jeedin karto. haddii xagga dambe lagaaga yimaado 360 degree waa uu wareegayaa. away soo qaba hadda away arday soo qaba silsilada soo qaba 360 degree uu wareegayaa qorigan 360 degree adduunku wareegayay ayuu wareegayaa. marka dhinac kasta oo diyaaraddu kaaga timaado si fiican ayaad iskaga difaaci kartaa. haddii laga soo galo wajahad aadan adigu markii hore joogin ama dhinacii aad ku ridaysay dhinac aan ahayn lagaaga soo galo si degdeg ah ayaad u wareejinaysaa. haddii ay kor noqoto waxaynu ognahay inuu qorigani hawada u kaco 90 degree laakiin waxaan idhi 90 degree kor loo qaadi maayo oo dhan waxaa loo qaadayaa wax dhan 82 degree oo wixii 90 degree hadduu gaaro oo uu dhakadaada gaaro inayna xabadiisu markaa xilligaas sax noqonayn ama uu shiishku ka xumaanayo. marka ardayga waxaa loo baahan yahay in uu mar walba la socdo qoriga meesha ay cilada kaga iman karto. nafti hore Faysal Cabdullaahi Sheekh Umar waxaad ka mid tahay guddiga qaybta Gorgor. halkan waxaad u timaaday koorsadan waxbarasho ay kaga qalin jabiyeen naftoodaraasha ka tirsan ciidanka xoreynta Ogaadeniya. waxay tahay koorsadan waxbarasho ay kaga qalin jabiyeen naftoodaraasha waqtimaysa soo xidhanta. koorsada la isugu yimid ee ciidanka loo qabtayna waxay ahayd inay ku bartaan hubka tiknikada ah ee aanu ka qaadanay cadawga ama aanu anaguba keensanay
taas oo loo bareeyay in ay ku burburiyaan cadowga Itoobiya xeryihiisa fadhiisimadiisa tiknikadiisa iyo ciidankiisa intaba waxaynu nidhi qorigani wuxuu wax ka dilaa xagga dhulka 3,000 ilaa iyo 600 ilaa iyo 3,300 3,000 malkaan leeyahay 3 kiiloomitir ilaa iyo 600 oo tallaabo ayaad cadowga jooga si fiican ugu burburinaysaa guriyihiisa baabuurtiisa iyo dhufaysidiisa marka waxa weeye baabuurka saddex xal haday ku dhacdo waxa weeye baabuurkaas dib oo dambe wada xaaladiisu waa asaas maartay ku akhrisaday marka baabuurta yaryar iyo kuwa waaweyn si isku mid ayaa loo tooganayaa doctore waxa la joogaa xilli ay ciidamada Itoobiya ay si loo yahay aynan dagaal diyaar u ahayn xukuumaduna ay wada hadallo soo dhiganaysa caalamka intiisa kale idinkana waxaad moodaa hadda inaad si laban laabisaan dagaalkii koobaad oo waxaad moodaa dagaal cusub inaad hadda bilowdeen markii loo fiiriyo qalabka u dambeeyay ee tiknikada la soo baxdaan ee dagaalka arinta ayadii maxaad kaga turjubaysaan kaga turjumaynaa oo kaga jawaabaynaa dhulkanaga gumaysi baa haysta hadday Itoobiya wada hadal soo dhigatay iyo haddayna soo dhiganinba weli waddankanaga gumaysi baa haysta intay taa ka dhulkanaga Itoobiya haysatana dagaalka wuu soconayaa waana wadaynaa waxaanan mar walba ku taltaal jiraa oo u tababaranaynaa marba marka ka dambaysa inaanu dardar gelino halganka aanu ku jiro ee aaya kantarinta ummadda ogaadeenya iyada oo aanu kaga xoreynayna waddankanaga naf iyo maalba una horay uma dabcayno wada hadal baa jira iyo waa la wada hadlayaa midna annagu laakiin waxaanu go'aansanay inaanu xabad kaga xoreyno cadowgan majuusiga ee muddada badan dhiigga dadkanaga dhaariyay taas oo ah inaanu wax kasta ku qasabno oo Itoobiya ay dalkanaga maxaan ku leeyahay ku sameeynaysay inaanu kaga xoreyno qoriga afkiisa marka taas waxay sababaysaa inaanu mar walba kor u qaadno tayadanada iyo waxbarashadanada mar walbana aanu goobaha dagaalka kaga gacan sarreyno waxaana dareemaysaa wada hadalka Itoobiya waqtiyaabihii hore waxa la oran jiray aanu gudaha ku wada hadal iyo onolaf ma jirtay iyo waxaas oran jirtay waxa ka keenay waa naftood horayaasha difaaca ku jira ee qalabaysan ee naftooda qaaliga u horay ee gumaca jiirka ka dhaxgeliyay askarta Itoobiya marka taas baana wadayna anagu waana ku qanacsanahay inaanu ilaa aanu ogaadeeniya ka xoreyno aanu dagaalka wadno taa ka inta dhulkanaga haystana waxba kama ogolaanayna Itoobiya anagu qorigan sida wax loogu dilo waxa weeye qorigan horta waa qori weyn waxaana lagu dilaa ma aragtay taangiyada baabuurta waaweyn adugu maartay gaadiidka diyaaradaha dhufaysyada cadowgu leeyahay iyo waxyaabaha la midka ayaa lagu dilaa waxa uuna wax ka dilaa meelo dhaadheer oo masaafaheedana si ku haboon aan ma aragtay aan u baranay xeryaha cadowga waqtiga lagu burburinayay ee dagaalka gaarka u taargeedsansan xerada danta u leedihiin waqtiga ku haboon waqti ahaan markii aad dagaalka oo ku qaadaan waa su'aal fiican laakiin adugu waqti kasta oo anagu istiraatiijiyad aan u malayno istiraatiijiyadanadu waqtiyaysan oo xilli anaga noo go'an oo jira ma jiraan oo anagu xilli waqtiyaysan ma qaadno dagaalka marka xilli la wada yaqaan ma aha marka anagu xilli kastaba waanu qaadi karaa dagaalka haday habeen noqoto iyo haday maalin noqoto haday casar tahay iyo haday galab tahay intaba waan qaadi karaa habeenkii waan qaadi karaa oo waxa weeye mitiraadka ama fogaanta ay xerada cadowga noo jirto wax noo kooban oo sahansan weeye marka waxa weeye sida darteed habeenkii dagaalana ku qaadi karaa maalinkiina ilka aragteedana aan garanayna oo nin kasto arday oo halka fadhiya ay wuxuu garanayaa inta uu qorigani wax ka dilay iyo meesha wax lagaga burburinayo marka dhufaysida cadowgu marba inta ay noo jiraan ayaanu ku xisaabtamaynaa dagaalka iyaguna ma aha mid xilli ku go'an oo waxa weeye jaan go'an oo ah in subax la qaado ama casar la qaado ma aha waa mid xilligii anagu aanu baragaraamsano ee waxa weeye mas'uuliyaadka jabadu ay soo go'aamiyaan xilliga la qaado weey waqtiga dagaalka markii laga tago qoriga waqtigiisa qoriga ma waqti cayiman bileeyay mise waxa lagu dagaalami karaa waqti kasta qorigan waqti cayiman waqti la baragaraamiyay buu leeyahay ciidan gaar ah buu leeyahay marka ciidan kastaba iskaga dagaalami kare wuxuu leeyahay
ciidamo loogu talagalay oo haddayna ciidamada loogu talagalay joogin suurtagal ma aha in lagu dagaalamo marka ciidamo loo xulay oo waxa weeye isaga ku qoran difaacitaankiisa iyo maaragtay ku dagaalankiisa rag takhasus u leh ayaa jira marka xilliga raggaas la helo maaragtay xilliga maaragtay la baragaraamiyey ah unba waxa weeye lagu dagaalamaayo ma aha xilli walba inuu maaragtay la iskaga dagaalamo maaha marka waxa weeye dad loo xulay oo loogu talagalay ayaa ku dagaalama sidoo kale waxaan iyadana waraysigii dhexdiisa su'aal ka weydiinay ardaydii ku takhasusay qorigan waqtigan xaadirkaana ka qalin jabisay horeyna ugu soo dagaalami jirtay qoriga oo ah qoriga loo yaqaano dhashiika bal waxaad naga warantaa qorigan sida loogu dagaalamo iyo habkaad ugu dagaalamto adigu waqtiga aad gacantaada ku hayso waxaan ugu dagaalanaa weriye sidii loogu talagalay baan qorigan ugu dagaalanaa sida loogu talagalayna waa noocyo kala duwan weeyaan waxaa lagula dagaalamaa afantariga taangiyada diyaaradaha mid kastaanba sida ay kugu soo marto dee sidii aad ugula dagaalami lahayd aqoonteedii oo fara badanna waan u haysanaa kolba qaabkii ina hor yimaadana waan ugu dagaalamaa takhasus intee leeg bay u leeyihiin ciidankan hadda qoriga adigu aad bartay kalsoonidiis intee leeg baad iska qabtaa ciidankan ardaydan kalsooni aad u fara badan ayaan ka qabaa waxa weeye takhasus aad iyo aad u fiican ayay u leeyihiin waxa ay yaqaanaan tiirada uu wax ka dilay inta ay la eg tahay waxay yaqaanaan xabadiisu waxay disho iyo waxay dili karto waxa ay yaqaanaan haddii uu qorigani waxa weeye ay dhibaato ku timaado sida ay ama maartay uga saari lahaayeen waxa ay u leeyihiin aqoon dheeraada raggani waxay maartay in badan ayay u xareysnaayeen qorigan marka waxa weeye raggani waxay u leeyihiin takhasus dheeraada aad iyo aadna waan ugu kalsoonahay oo nin kasta oo arday oo hadda maanta halkan jooga waxa uu maaragtay ugu shaqayn karaa si ku habboon hadday noqoto taangiyo iyo hadday noqoto diyaarado oo xagga hawada ah iyo haddii ay noqoto dheerar oo masaafo ahoo fogaanta maaragtay halka uu wax ka dili ah intaasoo dhan waxaan ka qabaa kalsooni aad u fara badan marka waxa weeye waa arday aad iyo aad wax u baratay waana rag takhasus u leh iyaga laftooda waa la weydiin karaa oo waxa weeye arday kastaba waxa uu kuu sheegi karaa qorigan sida uu wax ugu dilayo iyo inta uu wax ka dilayo waxyaabaha loogu talagalay in lagula dagaalamo iyo wuxuu dilaba uu kuu sheegaya fogaanta ugu fog ee uu qorigani wax ka dilo cabir ahaan adigu waqtigaad u aaminsan tahay ee aad ugu kalsooni badan tahay waqtigaad ku hayso gacantaada inaad wax kaga dili karto wuxuu leeyahay weriye qorigu sharci loogu talagalay baa jira marka xabadiisu waxa ay ugu tayo badan tahay sharci waqtiga loogu talagalay ee waxa weeyaan lagu jaangooyay weeyaan qorigan xabadiisu waxay ugu tayada badan tahay 3,000 ilaa 500 waad mahadsan tahay ciidankan ma wuxuu ka kooban yahay qaybta gorgor oo kaliya mise waxa ciidamada xoreynta ogaadeen oo dhan oo qayb ka mid ah ciidankani wuxuu ka kooban yahay laba qaybood qaybta gorgor iyo qaybta hanqar buu ka kooban yahay isaga oo loo tababarayo qoryaha tiknikada ah diyaaraadka dabaabaadka iyo afantariga intaba lagu dagaalamo ayay labada qaybood ciidamo dafcadii labaad ah oo tanan hadda duubayna ee indhiin hortiina ka muuqata ayaa tababar looga saaray qoryahan iyo qoryo kale oo kala gedisan marka labadaas qaybood baa hadda ka kooban yahay ciidanku aftore markaad koorsooyinka sidan oo kale aad qabanaysaan maxaa idinka caawiya shacabka mise ciidan ahaan baad arrintan idinku samaysaan dhaqaale ahaan iyo hawiyaan amni ahaan abni ahaan iyo dhaqaale ahaanba waxaa weeye bulshada ogaadeen iyo ciidankeedu waa mid isku duuban oo ul iyo diirkeed ah waxaad halkan ku aragtaa oo hadda hortaada ka muuqata biyo bacbiya ayaa ka muuqata maadaama oo ay hadda hortaada biyuhu ka muuqato waxa lagu keenay waa gaadiidka ogaadeen iyo dadka keenana waa ogaadeen xogta cadawgana ogaadeen yaa keena annaguna niman isdhigta maniine waxaanu nahay kuwa ciidanka qalabka sida uu mar walba u diyaarsan yahay dagaalka uuna leeyahay nidaamkii ciidan ee loogu talagalay iyada oo uu waardigiisa iyo roondadiisa iyo amnigiisu mar walba isagu ciidan ku sugayo
ayaa haddana mar walba waxaa jirta bulshada ogaadeen ayaa dayr noo ah waayo annaga iyo bulshadanadu waxaanu nahay ul iyo diirkeed mana kala marmin mana kala soocnin caawintana waxa weeye mar walba waxa aanu ku dhex jirray ee ku dhex noolahay waa bulshadanada weeye wax kasta oo aanu helaana boqolkiiba 99 wuxuu ka yimaaday waa bulshada ogaadeen dhexdeeda weeye wixii meel kale ka yimaaday waa hal weeye waxaynu nidhi qorigani wuxuu wax ka dilaa xagga dhulka 3000 ilaa iyo 600 ilaa iyo 3300 3000 malkaan leeyahay 3 kiiloomitir ilaa iyo 600 oo talaabo ayaad cadawga jooga si fiican ugu burburinaysaa guriyihiisa baabuurtiisa iyo dhufaysidiisa marka waxa weeye baabuurka saddex xal haday ku dhacdo waxa weeye baabuurkaas dib oo dambe wada xaaladiisu waa asaas iyo maartay ku akhrisaday marka baabuurta yaryar iyo kuwa waaweyn si isku mid ah ayaa loo tooganayaa Hurray, hurray, hobanta, ukurane.
geediga horuwada aan gaadhno xornimadeen aan gaadhno xornimadeen noocyo kala gedisan u baxayay isla markaana aynu rabnay inaynu kaga guulaysano cadawgeenna korra ugu qaadno aaya ka talinta ummadda waxaad dareemi kartaan maanta innaga oo joogna marka haddaba dugsigeenna hadda kolkii aan rabno marka inaynu hawl qabanno go'aamada marka haddaba xilliga iyada afulahaye ee macnaha hawsha lagu kala socodsiinayay waa go'aamo yacno saddexda go'aan mid ka mid ah wey waxaa tahay bara cilmiga militariga ee dugsiga difcadda labaad ee Siigaale maadooyinka aad bixisaan bal sharaxaad naga sii waa si fiican horta casharada aan bixinaa way fara badan yihiin laakiin waxaan kaaga xusi karaa oo hadda waxaa jira kuwa yow aanan halkan aanan ka xusaynin oo anaga noo gaar ah laakiin waxyaabaha hadda halkan aan ka ifin karaa waxaa ka mid ah cashiro ku saabsan nidaamka militariga ama trainingiga waxa loo yaqaano hogaamin discipliinka ciidanka oo ah marka haddaba basikaal ahaan meesha ugu horeysa ee ciidanku uu ka dhismo waxaa jirta marka iyada laftigeeda waxa la yiraahdo topograph oo isaga laftigiisu ah waxyaabaha lagama maarmaanka u ah saraakiisha militariga caalamka okay marka haddaba waxyaabahaas aan walaal kala socodsiin karaa tababarkani ma kii ugu horreeyay baa mise waxaa jira kuwo hore oo aad bixiseen oo noocan oo kala waxaa jirta tababara aad iyo aad u fara badan oo horey looga soo bixiyay geyiga ogaadeenya dugsiganina waa mid soo jireena hadda waqtigan xaadirkaana waa un la sii dardar gelinayaa kuba toogashay oo bari intay wax kugu cadaadaan tooganaysa maxaad maanta ka salay wajiib ninkan hawaana taad qaba maxaad ka salay jeemel maxkamad ama maamul ujeed marka ugu dambaysa ciqaabtiisa asagoo qoslaayo qurux badan oo raashin laga dhargay hala toog waa iska ilaaliya laga nax xuquuqay leeyihiin gaalna ha ahaade qofka maxbuuska xuquuq uu leeyahay karaamo dar uu leeyahay ciidankaagan akhlaaq xun ku beer hadii la xadgudub la barto iyo furfurashaday ninka hadaad xataa furanaysa markuu dhinto fur hadii la sii deynahayana hadii hala tago
sheeyaha ku cuni waa lagaa shamine shibdhahoo baroortayga daa waan ku shaafiyi shabeel neef u dilay baan tukaha shiid ka celiyaaye bari iyo shariirkeedii baan kala shubahayaaye dhul shidaalku ceegaagan yahaan cadow ka sheemaaya dadkaygaan sha'da iyo wowga iyo shuufta barayaaye dhulkayga uu shisheeyaha ku cuni waa lagaa shamine shibdhahoo baroortayga daa waan ku shaafiyi shilalkaan isgeeyaya tigree ima shabaaxeene shurunshuur ma laayeen raggii sharafta weynaaye nin walaalkii shiish lagu hayo oo sheedda uga waabin oo cadow shisheeye ah riyaal ugu shaqaynhaya sheeko kuma hayo oo maanan arag shaahidnaba daaye dadkaygaa abeesada sharfay oo shaadh u soo gaday fadhigay la sheekaysan oo kama shidoodaana shaarka iyo markay go'a gasho ee shuqmacida siiso cadhay ilmay shagax ka siin oo cadhay dib u shallaytoon gooruu shinkeed dhaafay yay shaaxin daydayi dhulkayga uu shisheeyaha ku cuni waa lagaa shamine shibdhahoo baroorta iga daa waan ku shaafiyi etoobiya shilkii ay gashay iyo shicibkii ay laysay quwadihii shisheeyaa arkay oo shuufay oo nacay maqaaxidii shidmayd baa demtay oo waa shuftaladeed nimankuu shuruudiya la galay sheeko bereleyda shaanshaan kuwii ooga yimid jarar shidaalkeeda waataan saban ku shiday goor hore iyo shaaci waa beri shufintii idlaatay ee dhimatay ee shidantay mooyaane intii kala shallaytiya cadhay dib u shiraacdeen abwaan cabdiqaadir maxamed good bal waxaad noo raacaysaa waxbarashadaadii iyo barbaarintaadii hore halkaad ku soo barbaartay intaa kadibna waxaad noo raacaysaa aan jeclaan lahayn bal inaadna maqashiiso gabaygaadii ahaa gabaygii magaciisu ahaa waxqabsada gabaygii la odhan jiray ee aad soomaalida kula hadlaysay yaan rabnaa inaad wax naga maqashiiso. waxaan ku soo barbaaray waxaan ku dhashay marka koowaad heel dheere meel layidhaaho oo ka tirsan degmada Garbo ee gobolka Nogob isla halkaas ayaan ku soo barbaaray isla halkaasaan dugsigii hoose iyo kaygii dhexaba ku bartay iyo malcaamadba kadib halkaas markaan cabaar aan joogay ayaa waxaan raacay jabadda wadaniga xoreynta ogaadeen ciidankeeda marka halkaas waxaan haddana haddaan halkaa kaga tago taariikh nololeedkaygii oonu imaado gabaygii gabayga waxqabsada waxaan sameeyey 2009 bishii afraad 12 markaa gabaygaasi wuxuu la hadlayaa bulshada Soomaaliyeed dhammaanteed dhaliisha ay leedahay kadibna ku dambaynayaa nimanka inala dagaalamaya walaaleyna gabaygii waxqabsada ma qalab adduunyada qofkada mintaa kugu qadaynayo adduunyadan qoryahaysatee ruuxba ruux qalayo adduunyadan colaad qaabishee nabadii ay meel isqaarinayso adduunyadan mugdiga qaabishee garashadii laga qaweynaaday qiimayna daad saarto waad si qariiban tahay qalbiyada intii aad furtaan qaata hadalkayga waxqabsada dadyo waatan waad kala qalloodaane adduunyadan runtii qaawantee beentiyay shar qurxoon gadatay adduunyadan qurmuun cadar noqdee shay udgoon laga qashafayo
adduunyadan jahligu qaatay ee aan cilmiga ruux qadarinayn qiimayn haddaad sarto waad si qariibantaye qalbiyada intii aad furtaan qaata hadalkayga wax qabsada dadyo waatan waad kala qalloodaan niman diintayniyey qaldan qori u soo qaatay oo qamiis cad soo wada xidho culimo qabkeed leh qur-aankana markii ay akhriyey qiiro aad dhimado salligiina qoonsada haddaad wedha kor u qaddo oo awliyada qaadaciyo hay-adaha qarba bidcaa qurunle mandhoway haqatay gobolkii cudurka soomaalida qabsada ee qarannimow diiday waa qabyaalada liidatiyo qolaana roone qarannimo ninkii yeelo ee shicibka qiimeeya qalbigu ku haystaa inuu waayi qadadiyeen qowlaysi mooyeen midnimo kuma qancayaane qarni bay isaystaan oy dagaal qawda kuwayaane dad qashiina weeyo xumaa ma qajilayaane qaxootiga ma dayaan intay qaran samaystaane qayaamada shisheeyaha indhaha kuma qacsiyaane qaramada midoobay iyo reer galbeed foolashayuga qoslayaane iyagaaba kala qaybin oo qarba lacagsiine qowsaarka oo iilayay qori u dhibaane madaxweyne adiga u qalmay dhagax qaniinsiine qayaamaynta hoosana baran bay u qodayaane sidii gabadh qurxoon oo rag badan damac ku soo qaaday layskuna qardoofoo dagaal qorta laysgeliyey welina la kala quusan oo dhiig u qubanayo qaabkay soomaalidu taha lagu qiyaasaaye cudurka soomaalida qabsaday qarannimow diiday waa qabyaalada liidatiyo qolaana roone qarannimo ninkii yeelaye shicibka qiimeeya qalbigu ku haystaa inuu waayi qadadiye qowlaysi mooyeen midnimo ku maqanayaane cudurka soomaalida qabsadee qarannimo ogaadeen yaciilkay qabta kaka qaraweyne ogaadeen yaciilkay qabta kaka qaraweyne halgankii qarniyasiisa soo socdee dhiig u qubanayey halgankii raqaaliya in badan qorta laga gooyey halgankii qureeshiyo cambaro cadowgu qondaystay waxaan qawdahaynen kufriga qorta jabinaba wayaanii wakaa quustay ee qaatay maradiiye dabaqoodhi qowsara oo qudyar daydeeya inuu haatan isoo qumbuxo waaqisiyo yaabeen inuu haatan isoo qumbuxo waaqisiyo yaabe nimu qaamudkii galay indhuu qowka laaliyaaye qoomkii ilaah rogi waxbay hadii ku qaataaye nin cadaabka loo qoray xumaan quruunaday waaye walaalkii markuu soo qabtay qorta laga gooyo nin la odhanada qaaliye 10 riyaal qaado isna ficilka laga qaad sida quruxba moodaya qiso weeye yaablo qarnigan waynu aragnaaye aabihii markii lagu horqale meydkiisana qarinta loo diido
nabadiibu qaadacay ayaa lagula qowracay askariga walaaqaylo kaga ooyin cabsi kama qabee waardigu qabo yidhaahdaye isna ficilka laga qaad sidaa qurubu moodaye isna ficilka laga qaad sidaa qurubu moodaye qiso weeye yaablo qarnigan waynu aragnaaye afarta qadiyo wowgay iyo qaab makay gadsay afar kalena waa maansaday qabatay labtaydu wayaanuu qabku dooni baan qodob ka sheekaynay inuu ina kala qaybiyo qoysba waacu sheego badhna qamandi soo siiyo uu qori u soo dhiibo badhna uu dhammaan soo qabto jeelku uu qaadi kari waayo badhna qoorta gooyuu rabayuu yahay qabeenkiiya qalbiyada intii yaad furtaan qaata hadalkayga wax qabsada dadyow haatan waad kala qaloodaane wax qabsada dadyow haatan waad kala qalloodaan dhulka Ogaadeniya waxaa ka socda dagaalo u dhaxeeya ciidanka wadaniga xoreynta Ogaadeniya iyo ciidanka gumeysiga Itoobiya sidoo kale waxaa Ogaadeniya ka jira xasuuq iyo tacdiyo badan oo ciidamada gumeysigu u geystaan shacabka Ogaadeniya haddaba gumeysiga Itoobiya oo ka hortagaya in laga soo waramo dagaaladaas ka socda Ogaadeniya iyo tacdiyada isugu jira dilka iyo cunaqabataynta naf iyo maalba leh ee lagu soo rogay Ogaadeniya wuxuu taliska Itoobiya ka hortagay oo la dagaalamay saxaafadda caalamka iyo midka shacabka Ogaadeniya inay ka shaqeyso dhulka Ogaadeniya iyaga oo dhammaanba ka hor istaagay warbaahinta inay ka soo waramaan gudaha Ogaadeniya gumeysiga Itoobiya waxa uu xiray wariyaal Ogaadeniya tagay oo ka socday warbaahinta New York Times, Telegraph iyo wariyaashii reer Sweden taliska wayaanuhu waxa uu geed dheeray mid gaabanba u fuulay sidii Ogaadeniya uu uga dhigi lahaa wadan ka go'an caalamka isaga oo ka dhigay saxaafadda dambi lagu muteysto ciqaab xabsi daa'im ah ilaa heer dil haba yaraatee wax isku xidhnaana iyo wax xidhiidh oo ka jira ma jiro waxa weeye waxba dawlad iyagu uma aha iyana shacab uma aha waxa weeye hadda markii la sheegay la yiraahdo halkan kada waxa maraya ciidamadii Itoobiya markii la yiraahdo shacabku way soo cararayaan oo meesha jabhad ku xigtay imanayaan waayo ciidamada Itoobiyankuna ma kala jecla jabhadda iyo shacabka ma kala jecla isku sida xabadda ugu rid sida darteed ciidii difaacaysa ee jabhadda ahayd yay u imanayaan marka dawlad uma aha dawlad ku sheegtana shacabkoodii ma aha oo uma naxayaan dhageystayaal iyo daawadayaal waa arday aad iyo aad u tiro badan oo tiradoodu gaaraysa 100 arday oo halkan wax ku baranaysa gudaha Ogaadeniya insha Allah waxaan dib idinka siin doonaa faahfaahinta dugsiga oo dugsigan oo magaciisa loogu walqalay University Teacher ciidanka wadaniga xoreynta Ogaadeniya ma aha koorsooyinka uu qaata oo kaliya ee waxa kamid ah kuwa militariga kuwa caafimaadka kuwa waxbarashada saxaafadaha iyo kuwa kale aad iyo aad fara badan hadda waxaad arkaysaa arday baranaysa sida loo duubo filimka waxa uu duubayaa wariyihii iyo xubinkii la wareysanayay isaga oo mudnaanta siinaya xubinkii la wareysanayo isla markaasna kolba sawirka la raacaya nuxurka sheekada hadda waxaa hadlaya ninkaa soo jeeda khaar baa hadlaya marwalba ninka wejigiisu muuqaya ninka hadlaya tababaradan la siiyey ardaydan ayaa ah mid u dhigma dadka ka shaqeeya TV-yada caalamiga ah ee reer galbeedka qaababka ay u diyaariyaan filimaanta waxaana la siiyey waxbarasho u dhiganta aqoonta saxaafadeed ee lagu bixiyo jaamacadaha Yurub iyada oo tababaradan ay bixiyeen aqoon-yahamiin ku xeel dheer saxaafadda sidoo kale waxaa la siiyey tababaro ku aadan sida loo diyaariyo wararka isla markaasna baadigoob loogu sameeyo dhacdooyinka waxbarashada lagu bixiyay dugsigan waxaa ka mid ah photography qaabka loo qaado sawiraanta
sawirka dhexdiisa mise hal mar labaad oo kale hadda waxaad arkaysaa xubin ka mid ah ciidanka jabhadda waddaniga xoreynta ogaadeynaya oo isu diyaarinaya in waraysi laga qaado faafaneediyo nogoboyo iyo jarar cadowbaantiyayo alabcaaneediyo hilibkiyo baruurtii hafsadoo cunaaye cadowbaantiyayo alabcaaneediyo hilibkiyo baruurtii habsadoo cunaaye hooyooyinkiiyo hablihiyo raggiyo hooyooyinkiiyo hablihiyo raggiyo kulliyeegan soo gala heeryada gumaysiga inuu hilayga tuure heeryada gumaysiga inuu hilayga tuure hashaydii mudeecbaa cadowiga yaayo horaadkeedii dheeraa lismadaadiida hashaydii mudeecbaa cadowiga yaayo horaadkeedii dheeraa lismadaadiida aniguna uqdiyo ciil habeenkii markay tahay hurdada ma seexdee hoos baan ooyaa hurdada ma seexdee hoos baan ooyaa hooyooyinkiiyo habliya raggiyo hooyooyinkiiyo habliya raggiyo kulli eegan soo gala heeryada gumaysiga halkaa waxaa ka muuqda wariye sheekh maxamed asad sheekh badri oo fadhiya xafiiskiisii oo diyaarsanaya wararka gudaha ee loo diro dibadda oo laga warbixinayo xogta rasmiga ee ka jirta gudaha waddanka Ogaadeniya soo dhawo wariye sheekh maxamed asad hadda marka aad halkan joogto ee gudaha Ogaadeniya joogto wararka ugu faraha badan xagee baa laga helaa wararka ugu faraha badan waxaa laga helaa midalan warar kala duwan baa la helayaa dagaaladii baa la helayaa ciidamada jooxa iyo kuwa gumaysiga Itoobiya ay wada galayeen waxaa la helayaa tacatiyadii ciidamada gumaysiga Itoobiya ay u geysanayeen shacabka waxaad helaysaa maxay ahayd dee bulshadii baa dhex socotaa iyo ciidankii wax alla wixii aad rabto haddii dagaal aad rabto haddii ma ogtahay xoog dheeraad aad rabto haddii nolol haddii aad rabto yani shacabka siday u nool yihiin marka wax alla wixii la doona la helayaa marka waxa intii la ururiyo waxaan u gudbinaa warbaahinteena iyo tacaalamka labadaba wariye sheekh maxamed haddii aan su'aal kale ku weydiiyo wararka aad ka diyaarso gudaha Ogaadeniya mid aad ugu raadsataa mise waa mid bulshadu markasta oo iyo markasta joogto ay kula soo xiriiriso meel laba nooc weeye anagu markaan doonno waan raadinaa laakiin inta badan dee maadaama bulshadii aanu dhex joogno dadkuna ay naga warhayaan halkaasi xogta noogu keenaan kolba meeshaan u joogno yaana loo imanayaa waxaa imanaya aabbayaashii baa imanaya odayadii baa imanaya dhalinyaradii baa imanaysa hooyooyinkii baa imanaya gabdhihii baa imanaya cid kasta oo ma ogtahay bulshada kamid ayaa imanaya marka halkaasaan marka waanu wareysanaa fikraanu weydiinaa tala bixinaanu weydiinaa halkaasaan marka yaanu ka gudbinaa su'aal kale haddii aan ku weydiiyo isku xidhnaan intee leeg baa ka dhaxaysa bulshada Soomaalida Ogaadeniya iyo xukuumadda EPRDF haba yaraatee wax isku xidhnaana iyo wax xiriir oo ka jira ma jiro waxa weeye waxba dawlad iyagu uma aha iyana shacab uma aha waxa weeye hadda markii la sheegay la yiraahdo halkan kada waxaa maraya ciidamadii Itoobiya markii la yiraahdo shacabku way soo cararayaan oo meesha jabhad ku xigtay imanayaan waayo ciidamada Itoobiyaanku ma kala jecla jabhadda iyo shacabka ma kala jecla isku si xabad ugu rid sida darteed ciidii difaacaysa ee jabhadda ahayd yay u imanayaan marka dawlad uma aha dawlad ku sheegtana shacabkoodii ma aha oo uma naxayaan su'aal kale haddii aan ku weydiiyo ciidamada Itoobiya marka ay soo howlgalaan goobo cayiman oo isleeyihiin xogaha rasmiga ah ee ay u baahan yihiin baad ka helaysaan oo ay si gaar u targetsadaan ma jiraan xilligan hadda Ogaadeniya lagu joogo adugu hadda ciidamada Itoobiyaanku horta hadda way hawl gabeen waayo in badan baa xabad iyagii jooxo ay ku wada jireen wax guule way ka gaari waayeen bal iyagii baa jabay marka iyagu waa reebay gacmaha taageen kuwan kada sabab fadhiya iska raaxaysanaya kuwaas hadda soo amrayo baxale hadda waxa la ii sheegay maalin dhaweyd qabridaha yaa intii la jabad baa dhan walba ka soo gashay yaa sidii iyagoo baxayay iska dhigayno markaas different directions ama jooyin kala duwan iyo ciidanka u dhaqaaqay 1 kiiloomitir markii magaalada ay dhinac uga sii socdeen iyo dhammaan soo wada noqdeen marka waxa weeye hadda kaliya ma hayaan iyo awood midna way moral jabeen xabad hadda markii la isku rido way yaacayaan in badan baan goob joogaanu ahayn marka wax raadsi ma jiro marmar baa waxay isku eedeeyaan cid muhiim hadii loo sheego inay yar gaadaan in laga war helay hadii ogaadaan way sii cararayaan marka aad bay u tabaryariyeen
waad mahadsan tahay waxaan ognahay xilligii hore ciidamadii Itoobiya ee hore xukuumadda Itoobiya ay toos ka u lahayd in ay ka awood roonaatay ciidanka jooxo inuu ka awood roonaaday oo hawl gabeen dibna laga soo sameeyay kuwa kale oo Soomaaliya luqadda isirka Soomaaliya ku abtirsanaya marka kuwa xaaladooda hadda halkee maraysaa kuwa xaaladooda haba yaraatee ma jirto totally waa destruction ma ku dhacay way burbureen kuwaas xilligii la sameeyay 2009 iyo xogaa bay yar hawl galeen shabaadana wax dhiba mid u geysanay shacabkay baabi'iyeen waxa way boobayaan gabdhahay kufsanayaan hantiday dhacayaan marka dhibo fara badan bay geysteen kadib marka shabaada ayaa gacan bir ah ku qabatay dagaal fara badan baa lala galay way jabeen kolkii ugu dambeysana Itoobiyaanka dhaqankooda inay waxba ka aqoonin muddo markii la yar eriyay yaa fiishtii lagala baxay marka wax yar baa hadda yaa ka sii joogo waxana xuduudda Soomaaliya ku walageeyay oo turjumaan u yihiin waxana kuwa wayaanay wadanka Ogaadeniya jooga yay wadamariyay iyo turjumaaniyay yani aqoon ay u yihiin mooyee hadda ma jirto maleeshiya isku xidhan oo Soomaaliya oo hawl gashaa ma jirto totally way burbureen mahadsanid weeye Sheekh Maxamed suuqu mid joogta weeye xataa maanta waxaan loo sheegay 3 ruux oo ay dileen marka celcelis ahaan maalin kasta Ogaadeniya 10 ruux ciidamada gumeysiga Itoobiya way ku dilaan intaaba dil baa ka socday maanta oo ilaa bishu ay tahay 28 wuu socdaa meel kasta way ku dilayaan hadda fiiq waxaan loo sheegay in odaya inay ku dileen oo Nuur Xuseen la yiraahdo oo shacabkii ay gadoodeen maalin saddexaad oo dhagax tuur ay bilaabeen marka degmaadku ku socdaa meel kala duwan oo ka socdaa wadanka Ogaadeniya oo dhan uu ka socdaa marka waxa weeye malaha dadka dibadaha joogan xogta noocaas haynin waxa weeye shacabka saaban baa loo baabi'iyaa mar walba oo ciidamada jooxo iyo kuwan kada gumeysiga Itoobiya ay iska hor yimaadaan oo dharbaaxa xoog leh lagu dhuftaba waxay ku gadoodayaan deegaanka ugu dhow kaasi wuxuu ahaa wariye Sheekh Maxamed Asad Sheekh Badri oo waraysi guul yeelanay gudaha wadanka Ogaadeniya inkastoo uu gumeysigu isku dayay inuu cunaqabateen saaro Ogaadeniya haddana waa uu ku guuleysan waayay saxaafadda Ogaadeniya inuu xidho xarunta dhexe ee jabhadda wadaniga xoreynta Ogaadeniya ayaa sahashay in wararka ugu dambeeya ee Ogaadeniya daqiiqado gudahood ku soo gudbiso halkaas waxa aad ka arkaysaan injineer kamid ah isgaarsiinta jabhadda wadaniga xoreynta Ogaadeniya oo ka shaqeynaya qayb kamid ah isgaarsiinta jabhadda ee wararka lagu soo gudbiyo sidoo kale wariyaasha Ogaadeniya oo adeegsada isgaarsiinta casriga noocyadeeda kala gedisan wariyaasha Ogaadeniya waxay si toos ah u soo gudbiyaan wararka ugu dambeeya ee ka dhaca Ogaadeniya السلام عليكم هلو والله لا دياد بان عاد هدي الله عندك كوسر aad bad yaabeysa marka waxa weeye hadda waxaan dhax fadhiyaa meel aad iyo aad u qurux badan oo kamid ah wabiyada Ogaadeniya mara waa martawey baa meesha lagu magacaabo waa banka aad u weyn ilaa galbeed ka yimaada ilaa u daacana koonfur dhul aad iyo aad qurux badan joogna idinku seetiin caafimaadkiina ka warama oo aad bay u liidataa nafturaashuna aad bay uga guuleysteen marka daraa dagaalkii dhacay waxa lagu dilay 57 gaal innagana waan ku guuleysanay qalab far badan oo aan ka furanay oo qoryo waaweyn leh oo dawo leh oo dhar leh oo wax walba leh marka aad iyo aad baan u guuleysanay alxamdulillaah rabbil caalamiin awala aad baan ku salaamay assalaamu calaykum warkaas ku dhimaado waay لكن بلا شقار بلا قسمتين يا قسمتين واحد يفكر كذا ميان يتوري ما نحرسن إن بالهم بخليه بقى في الوقت waxaa la soo gaaray gubaabadii iyo gabagabadeenii barnaamijkeenii caawa nafti huraha inta aan dib u wada kulmi doonana wax anigoo ah haabiil waxaan leeyahay habeen wanaagsan